gudoomiyaha xisbiga wadani iyo musharaxa xisbigaba kulli waa loo tartami doonaa waqtiga noqotaba adiga hankaasi ma kugu jira marba bay ugu soo baxday markii la iska yeebrey Faarax Abdulqaadir oo wada hadalada Soomaaliya aan sugnay ugu xirsiga Muqdisho marka ugu qariib ma waan arki jiray waa si wanaagsan wixii ka dambeeyay 2012kii waqtigii idinku aad bilowdeen in la kulmo madaxda dawladda Soomaaliya isla markaana lagala hadlo hadba wixii aad wada hadaladu ay ku saabsan yihiin waxa la sheegaa ama waxa muuqato la arkaa iyadoo madaxda Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya ay dad aqoon-yahan ah oo reer Soomaaliland ay xilal mansab sare ah uga magacaawdo dawladda Soomaaliya wixii inta ka dambeeyay waxa la tiradu intii hore way ka korodhay jid baad seexdeen aan shacabka iyo dadkuba aanay jeclaysan ma la oran kara xirsiyo u muuqday leadership style-ku ama hanaanka maamul iyo hogaamineed madaxdu way kala duwan tahay qoladan joogtaan iyaga doortay inay si qalafsan wada hadlaan qolada horena iyaga doortay inay si ilbaxnimo ah oo ka dabacsan sida wada hadlaan waxa tahay hogaamiyaha xisbiga mansabka hogaamiye halkeebu ka soo gala qaab dhismeedka xisbiga Khalid waftiye way inuu yimaadeen waftiyiin imaadaan inuu waftiye inay naga tagaan ma aha inay arrimihii dawladda wax ka qabsoomeen oo halkan waxa hore inoogu yimi European ministries balkan ama wasiiro Europe inuu yimi oo aan mid ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo afar shan dalba inuu wasiiradu inuu yimaadeen oo high level ama madax sare ah oo aad u sareysa marka deyn Malawi wafti ka yimi ma aha wax weyn oo mucjiso ah wasi wanaagsan bishii September ee sanadkan wuxuu kulan magaalada Hargeysa idinku dhaxmaray siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi oo waqtigaasi ka tirsanaa xisbiga kulmiye maxaad nooga sheekeyn karaysaa kulankaasi uu daarnaa labadiina siyaasi oo Soomaaliland dhan deelada ka wada garanay taban yani dad soo qaadata arrimaha dibadda meel gaar ah ay ku sheegtay inay guul ka gaadheen maan arag laakiinse de safarro waa laga yaabo ay sheegan karaan haddii ay sheegtaanba oo warkaaga ka soo qaado inay guul sheegteen de guushaasu waa guul iyaga la weydiin doono anaga guul noo muuqata maadaama Soomaaliland halkii wali ay taaganto aan la ictiraafin aanay helin wax horumar ah oo xagga arrimaha dibadda ah oo aanay dawlad ama in ictiraaftay ama saaxiibtinimo gaar oo soo korodhay ama waxa weeye wax horumar ah oo weyn oo la taaban karo oo ah waxa weeye dawladda Hiblaya waxa ina la qabatay midkoodna hadaanay jirin runtii de sabab inka ay u sheegtaan ma garan karo hadaan warkaaga raacaan warkooda ma arag marka la eego dawladda qaar baa hoos u dhacday ama karaamada in kulan hoos uga dhacday si Itoobiya oo kale wada arki karisay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka hadlay dhawaan gaar ahaan bishii hore khilaafka u dhaxeeya Cabdi Xaashi oo ah gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo iyada oo sida hadalkiisa ka muuqatay uu madaxweynuhu garab siinayay Cabdi Xaashi sidee baad u arkaysaa ka hogaamiyahan hadalka madaxweyne Muuse Biixi